السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابكم إحنا دم حميدي وميلو بودني دافه أتكجوكتن يوسول بوات إنه داونيسان وحن إذن لنا عيد ونكسن تقبل الله منا ومنكم صالح العمل إن أذيو كبلاوي إن مقعاي أو سدحان كسودو دم حميديا waan ku dhawahay marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa mukhtaar axmed maxamed oo loo yaqaano mukhtaar al waan ku dhawahay istuudiyaha damxa media aada u mahadsantihiin dadaalka iyo aad noo samayseen oo ku aadan ka qayb qaadashada munaasabadda ciidul adxa almubaarak waa ku mahadsantihiin mar koowaad iyo mar labaad dhammaan ummadda muslimiinta guud ahaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed kasii gaar ahaan reer Afgooye waxaan ugu hambaleynayaa munaasabadda ciidul adxa almubaarak waxaan idin leeyahay hambalyo maadaama ciidan ay noqotay ciid xoogaa ay roob noqotay dhulka uu yahay dhiiqo dadka inta badan ay wataan kaba dhiiqo kabihii oo xaragaha lahaa oo kabihii baabuudka la soo xiran lahaa dadka qaar ay ka soo tageen kaba dhiiqay ay wataan dadka inta badan alxamdulillah ilaahay barwaaqo ha nooga dhigo aad oo maasantihiin waa salaamantiin dhamaantiin adigoo aadan qadka ka bixin waxaan ku weydiinayaa maadaama ciidan ay ku soo aaday ciid oo roob ah adigina aad weli aad ku sugan tahay degmada Afgooy farxadaada ka waran sidee looga ciiday mana sii jeclaan lahayd inaad dalxiis aad oo mise waxaad ku qanacsantahay oo aad sii joogaysaa degmadaada والله دقمة نفتقيدا دقمة لو صد الحيس تجو إن كستو أي جيران فتهادو ودوينك يجين راب بدن ودأي دول كان ليقفر بدن أي كم وقته جواردن أي هكت جلان ليقدر درتت وحنزي جعلان لها ما دام دول وياهي مثل ليقيسن إن دقمة إسكسي جوجو وكذا الحيسو أدي أي صورة تجشوا مع المحسو آدن xoogaa jaanis loo helo in aan soo booqdo magaalada Muqdisho iyo goobaha loo dalxiis tago sida Daar Salaam xeebta Liido beerta Nabadda beerta Banaadir meesha ay noo suurto gashay insha Allah laakiin degmada la dhihi karaa halkii loo dalxiis imaanayay ay tahay maasha Allah maadaama ay tahay degmo oo doog له ما شاء الله بوندوين اسكو سويران له سيده حمر اي ما بوندوينta ay isku sawiraan oo kale marka sidoo kale beerahan jambuluul iyo maadaama hadana xamar xitaa ay ayaga degmada ay soo dalxiis tagaan anagana degmadeena ma sha Allah maadaama hada dhiiq ay iska tahay marka waxaad leedahay waan sii joogayaa insha Allah waxaan sii jeclaan lahaa inaan degmadeyda ku ciido oo shacabka وقت لقاء أصحابته إن شاء الله سيدا أنكو شيئين معلومة سوء آدن هذا جانس فرصة يسور تقشو إن شاء الله مالك على وانسي آدي دونا إن شاء الله وادكم هاسان تهي كاسونا وحو أها walaalkeena Mukhtaar أنا sidoo kale waxaan halkan ku soo dhaweynaya dhalin degmada Afgooy in la sugan oo hadana gaar ahaan garabkayga taagan waxaan ku leeyahay ku soo dhawaada Maxameediya adigoo ka bilaawaya magacaaga saddexan walaalo waan dhawahay magacaygu waa Nucmaan Ciise Cabdi oo loo yaqaano Albashiiri waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bahda Damxa Media ku xiran waxaan leeyahay taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal wa a'adahu Allahu alayna bil amni wal iiman was salamati wal islam ciidukum mubaarak dhamaantiina ku ciida nabad iyo barwaaqo iyo bashbash iyo naxariis aan dirjeenaya dhamaantiina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدبت ومحسنتها هذا وحن كسودويننا مد كمد دلنت Afgooy waxaan ku leeyahay ku soo dhaw Dam Xameediya adigoo ka bilaawaya magacaaga saddexan bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga Nuurdiin Abdiqaadir Cadaa waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan kulla caam wa antum khayr adigana ku soo dhawow Dam Xameediya waxaan ku leenahay ciid wanaagsan adigoo ka bilaawaya magacaaga saddexan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عبد البصير حسين وحان إذن لي ولا لها كحرا Damxa Media كل عام وأنتم بخير عبد البصير sidaad u aragtaa dareenkaaga ka qayb qaadashada adigoo ku ciidayo degmada Afgooy maadaama ay jiraan roobab
iyo dhulkii uu dhiiqa yahay ma sii jeclaan lahayd inaad sii joogto mise waxaad jeclaan lahayd inaad magaalada dalxiis aad u aado sida muqdisho waad mahadsantahay walaal waxa weeyaan horta ciidani ciidaha kale way noogu duwan tahay maxaa yeelay ciidani waxay noogu soo aaday xilli roobaad ah nimca ilaahay waaye ma diidi karno balse anaga ahaan waan ku faraxsannahay si walba ay ahaato degmadeena weeyaan afgooye waynu ku ciidaynaa insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo haddana sidoo kale waxaan kusoo dhaweynayaa mid ka mid ah dhalin degmada afgooye ku sugan waxaan ku leeyahay kusoo dhawo Damac Media adigoo ka bilaabayo magacaaga oo saddexan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دمح ميديا waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan kul caam wa antum bikhair hadda waxaan ku soo dhaweynayaa mid ka mid ah dhalinta degmada afgooye ku sugan waxaan ku leenahay ciid wanaagsan ku soo dhawo Damac Media adigoo ka bilaabayo magacaaga oo saddexan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa Soomaali Maxamed meel walba ay joogaan runtii aad waxaan aad ugu faraxsanahay ciidan Ciidul Adha runtii farxadeena ma la soo koobi karo inkastoo ay afgooy dhooqa iska tahay waxaan jeclaystay maanta saaxiibkeyga Damxa inaan la ciideysto waqti la qaato runtii waan jeclaan lahaa asxaabta intaan wax isla soo baranay dhammaantood inaan la waqti qaato inkastoo aysan dhicaynin mararka qaar dhammaantiin waxaan idin leeyahay dhammaantiina Soomaali Maxamed meel walba ay joogtaan عيد مبارك sidoo kale hadana waxaan ku soo dhaweynayaa mid ka mid ah dhalinta degmada afgooye inoo la joogo waxaan ku leeyahay ku soo dhawo Damac Media adigoo ka bilaabayo magacaaga saddexan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وعبد السلام عبد الحسن وحان إذن ليا دمان دتك كحران جانل كدمح ميديا عيد مبارك عيد سعيد كل عام وأنتم بخير صالح الأعمال aad baad u mahadsantahay haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa oo garabkayga taagan mid ka mid ah dhalinta afgooye ku sugan waxaan ku leenahay ciid wanaagsan adigoo ka bilaabay magacaaga saddexan ku soo dhawo Damac Media waxaan idinka soo hadlayaa degmada afgooye gaar ahaan xaafadda Waanjeele muslimiinta dhammaan waxaan ugu hambaliyeeyaa Ciidul Adha ciid wanaagsan dhammaan waxaan halkaan aan ciida aan la qaybsanayaa dhalinyarada asxaabteyda ah gaar ahaan saaxiibkeyga oo garabkeyga Xasan Maxamed Meerkay iyo saaxiibkeyga kale Xasan Isxaaq ma sha Allah aad ayaan ugu faraxsanahay maanta dareenkeena ma soo koobi karo sidoo kale waxaan ciida aan u dirayaa xaaskeygan aadkan u jeclahay Faisa Wehliye Umar iyo caruurteyda ma sha Allah iyo sidoo kale waxaan aan ciidan u dirayaa dhalinyarada qof walba oo magaciisa si oo aniga oo asxaab oo ila ah ma sha Allah hambaliyadana aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay oo maanta oo waraysiga tiga qaadeen aad u mahadsantahay Eid Mubarak